madaxda urur siyaasadeedka ummadda ee uu hogaamiyaha ka yahay Dr. Maxamed Cabdi Gaboose wasiirkii hore ee arrimaha gudaha xukuumadda Axmed Siiraanyo iyo wafdi culus oo kamid ah urur siyaasadeedka ummadda ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay maanta gobolka Awdal soo dhaweynta urur siyaasadeedkan ayaa taageerayaasha ururkani oo wata gaadiid fara badan kaga hortageen duleedka magaalada Kalabayd madaxda iyo mas'uuliyiinta urur siyaasadeedkan ayaa si ballaaran loogu soo dhaweeyay magaalada Dile ee ka tirsan gobolka Awdal waxaana halka hadal ka jeediyay gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda iyo gudoomiye ku-xigeenka ururkaasi Dr. Maxamed Cabdi Gaboose iyo Dr. Qaasim Sheekh Ibraahim Tubeec waxaana kamid ah hadallada ay ka jeediyeen magaalada Dile ee gobolka Awdal. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi sida qiimaha leh ee noo soo dhaweyseen ilaahayna waxaan baryaynaa inaanu noqono kuwa baahidiina ka jawaaba markaa khudbad dheer uma soo bixin waxaa keliya jeclaystay waan isku dambaynaynaa inaan isbaranno oo kolleyba foojiyo badan oo intaana dhulka ka tegin dhashay baa jira waxaan keliya u kacaynayaa ilaahay baa mahadaale isku keen soo celiyey halkan dheerina way noo hadhay hadda dadka sharafta mudan ee Dile nagu soo dhaweeyey iyo hadalladii iyo codkii quruxda Zainab waxaana deeqay ana taabtay magaalada Dile ee albaabka laga galay gobolka Awdal waxaan hubnaa haddii Dile ay arrintaani ka dhacday ururka gobolka Awdal gacanta ku haya inuu noqonayo ururka ummadda soo saama waxaan idin sheegayaa arrin sida ay danoobeen ururka ummadda kolkii la aasaasayay fakarka maanta ito baaxadda dhalay waxa iskale min reedila ma iskale weli maanu sheegin laakiin waad ogaan doontaan waa kaa maanta ifay waa kaa gobolkii baaxad weyn ku yeeshay waxaad ku talagali doontaan maantay ma aha weli waqtigii kambeynka lama ogola maaragtay hadallo badan oo barnaamijyada iyo waxa soo dhaweynun baan oran karnaa aad iyo aad baan noo taabateen sidoo kalena haweenka magaalada Dile ayaa iyaguna halka ku soo dhaweeyay urur siyaasadeedka ummadda suugaan ay kamid tahay buraanbur iyo geeraar waana tan haweenay kamid ah haweenka ku dhool magaalada Dile oo amaan u jeedinaysa urur siyaasadeedka ummadda shacbiga Soomaaliland oo teebayeen danteeda ninka heereedaadeen ummadda Soomaaliland ku doonayaan diyaar waxaan kuugu noolaan ku dooranaa diyaar waxaan kuugu noolaan badbaadahayn bulshada Soomaaliland kayu baaqdeen bulshada Soomaaliland kayu baaqdeen sideediyo tobanka sano kaan sugaynayo sagaaliyo tobanka sano kaan samirnayo kaniyo saaniyo sanaad saaxiliyo tagdheer caasimada Hargeysa calanku meefiyaal gobolada Awdal iyo Kubaanad meerade geesiga loo baaqayee looga baaqayee wafdiga urur siyaasadeedka ummadda ayaa uga soo gudbay magaalada Dile dhanka magaalada Boorama waxaana duleedka magaalada Goryacol ka soo galbiyay gaadiid tiro badan oo ay saarnaayeen taageerayaasha urur siyaasadeedka ummadda kuwaas oo soo galbiyay dhanka caasimadda gobolka Awdal ee Boorama markay soo gaadheen magaalada Boorama mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka ummadda ayaa Dr. Maxamed Cabdi Gaboose gudoomiyaha urur siyaasadeedku wuxuu xadhiga ka jaray xafiiska ururkooda ku yeelan doona magaalada Boorama waxaana halkaasi kala hadlay taageerayaasha ururka gudoomiye ku-xigeenka ururka Dr. Qaasim Tubeec iyo gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda Dr. Gaboose taageerayaashaasi oo ku sugnaa barxadda weyn ee xafiiska ay ka furteen magaalada Boorama urur siyaasadeedka ummaddu sidoo kalena waxay mas'uuliyiinta urur siyaasadeedka ummaddu shir ballaaran oo qada sharafeed ah la qaateen 200 oo qof oo isugu jira aqoon-yahan salaadiin culimaaddin dhalinyaro iyo haween ka tirsan bulshada ku nool magaalada Boorama taasi oo ay mas'uuliyiinta ururka ummaddu halkaas uga sharaxeen siyaasadda ururkooda iyo hadafka ay ku dhisan yahay urur siyaasadeedka ummaddu waxaana halkaa ka hadlay mas'uuliyiin tiro badan oo ka tirsan ururka ummadda oo ay hormood ka ahaayeen gudoomiyaha urur siyaasadeedka ummadda Dr. Gaboose iyo gudoomiye dadka tartamaya inaad qiimaysaan oo ka daysaan inaad wareer hebel ku doorataan in badan baan anigu runaantii waa runtii
وين يرعى الناس بانوا عبنا وشدنا وارفنا ما يربك تتماطى لكن واحد لوبة هاي وبالوحن حولها جاء عن تدكي كراديو مشرحات كجوابك سومالان وذكر أعوذ الله وذكر urur aan soo baxayn aad saartid awooddaada oo aad xubintii aad soo sharaxaysay ee dawladda hoose aad urur aan soo baxayn oo aad qabyaalad ama si kale aad ku raacday aad siisid ku talagal himiladaadii fogeyd ee ahayd dawladda dhexe inaad wax ka noqotaan inaad siyaasadda dalka wax ka hagtaan inaan idinku aynu noqon kuwa inta dhaca gadaal lagu yiraahdo xisbiga kale raac ogaada inay ka khaldantay taladii sidaa awgeed ururadu waa wada inamadiinii mid maaragtay shisheeyaa ma jiro qiimeeya gobolada qiimeeya shacbiga qiimeeya kuwa wata qiimeeya halka waxaa kaloo halkaasi hadal ka jeediyey salaadiinta gobolka awdal qaar ka mid ah waxaana ka mid ahaa salaadiinta halkaasi ka hadashay hadalladoodii taana waxa weeye koox iyo ciyaarta ay la timaado iyo nasiibka ay la timaado aad baan idin soo dhawaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu fadhidaa ka dhargaayo baxbaxdeedaa ka gartaa weeyi dictoorku aniga waa dictoorkaygii dictoorka boogta waa dictoorkaygii ninka kale waxaa ku yidhi kaxaafadii ka sokaysay baa noqdayna qodobka ka soo baxay baan yaabaan qaatay sanadna waa markii koobaadee nin ku jira baan maqlaba wixii aad sharaxdeenna ninba waa wixii alla kaga dhaadhiciya nin karta nin isagdhiga ninba waa sidii u noqdo anuu tu anan dayin baa jirta anuu dood kama baxo dood waxa laydhaa kama baxo waa soo dhaweyn jiray waa dhisi jiray waa ku dhibboon jiray tani ma ka duwan tahay waa iga su-aal wey yaa waa tani ma ka duwan tahay aan hubsano waana waxay soo baxday waa safarkii ugu horreeyey urur siyaasadeedkan ummaddu ku yimaado magaalada boorama tan iyo intii lagu dhawaaqay aasaaskiisa iyo intii uu ka mid noqday ururkan ummaddu ururada sharciga ah ee ka dhisan somalilan haashim sheekh cumar good Somalisat TV Boorama.